علي سعيد عبدي ayaa noqday bukaankii u horeeyay ee nasiib u yeeshay dalka gudihiisa loogu sameeyo qaliin dhinaca beerka oo hore dalka dabadiisa loogu aadi jiray isla markaasna Soomaalida ay kaga bixi jirtay qarash badani. Cisbitaalka Amal Graan oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa sameeyay qaliinkaasi oo ah mid ku cusub cisbitaalada Soomaalida. Dhakhaatiir ku takhasustay qaliinkan oo ay dalka dabadiisa ka keeneen ayaa ku guuleystay qaliinkan. Dr. Ilis oo ah dhakhtarka sameeyay qaliinka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka uu ugu guuleystay qaliinkaasi. Today we have Ali who sustained a road traffic accident and he came to us after 10 hours of the injury. He sustained an injury on his upper torso or upper abdomen. waxaan u weynaa isbitaalka ninkan aad arkaysaan oo ah case 7 cisho ka hor nooyma ku dhacay car accident amba shil baabuur buu ku galay magaalada Berbera. Shilkaas wuxuu ku sababay in uu ku dhaco jug ka soo gaadhay marka beerka kaasoo keentay marka beerkiisu inuu kala dilaaco amba liver rupture wax la yiraahdo ku dhaco 10 saacadood ka bacdi waxaana lagu keenay isbitaalka waxaanu u sameeynay marka qaliin waxaana u sameeyay Dr. Ilyas oo dhinaca bidix iga taagan qaliinka lagu sameeyay wuxuu qaatay waqti dheer waxaanu ku shubnay intii qaliinka lagu jiray 7 bag oo dhiiga 7 units of blood buu qaatay waa dhiig badan ilaa 2 litir iyo badh oo dhiig badan buu lahaa marka xaaladiisuna shak buu ku jiray amtii meerkiisu muu joogin waqtiga qaliinka waqti dheer ka bacdi alxamdulillah ilaahay wuu nagu guuleeyay qaliinkii waana ku guuleysanay maanta waa ka hadlaya dhinacayga fadhiya marka xubiyaan bulshada waxaan ogeysiinayaa in aanu soo kornay dhakhtar qaliin oo waliba specialty-giisu tahay marka hepatobiliary surgery oo aanu ku soo kornay marka dhakhtarka Amal Graan Hospital waana dhakhtar multi specialty hospital. Mukhtaar Siciid Cabdi oo ay walaalayihiin Cali Siciid Cabdi oo ah ninka qaliinka loo sameeyay ayaa isaguna waxa uu mahad celiyay cisbitaalka Amal Graan. ninkan dhinacayga fadhiya oo walaalkay oo iga yar oo Cali Siciid Cabdi la yiraahdo oo uu ka soo gaaray shil gaari qayn dhaawacaad culus oo ahaa beerkiisii inuu kala jabay saddex qaybood marka loo qaybiyo laba qaybood oo kamid ay burbureen ka bacdi markaan dadka wareysanay aan ogaanay inaan dalka waxba laga qaban karin nin doctora oo ka shaqeeya dhakhtarka oo saaxiibnahay oo la raac Iftaax Shiine inuu noo sheegay in noloshiisa la badbaadin karayo oo dhakhtar uu joogo ku takhasusay beerka cisbitaalka la yiraahdo Amal Graan oo ku yaala dhismihii Naaftiinle ee loo dhan jiray Xamdi Hotel ka bacdi go'aankan isla qaadanay inaan degdeg u soo qaadno isla 8 aan ka soo baxnay 4 galabnimo magaalada Berbera 8 habeenimana aan soo galnay dhakhtarka isla 8 barkiiba qaliin loo diyaariyay degdega qaliinkii 9kii la bilaabay laguna guuleystay 2 habeenimo iyadoo qaliinkaasi aad u adkaa maadaama oo meesha la qaliyay ahayd halboolayaal dhiigoodu aad u habayo oo qofku aanu xataa mar kaliya ka jeesan karin inta ka bacdi qaliinkii waa lagu guuleystay tana ugu ma jirin dalka hore kaliya waxa lagu soo sameyn jiray dalka dabadiisa iyo meel fog oo macnaha kos badan ku bixi lahaa markaan magaaladii wareysaneen haru galay aan wareysanay dadkii nooga soo horeeyay magaalada ama se wax ka ahaaba waxay noo sheegeen inay suuragal ahaynba in qaliin lagu sameeyay magaalada Hargeysa laba waan la yaabnay bay dhahdeen inaga helay oo aan gobolka ahayn iyo Hargeysa gudaheeda ayaa lagu qalay beer marka waxaan leeyahay cisbitaalkan qoladan ka dambeysay fikradda iyo aqliga waxay keeneen aqli hore oo hore dalka uga jirin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha cisbitaalka Xasan Galayd warkonkibel Hargeysa ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai موبايلو تلاجدو قسالدو تابلتس dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad
tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee teleefankaaga kadibna geli teleefanka qofka aad doonaysid inaad u codaysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333